hal aragti horta dhacdo oo taariikhiya dadka Soomaaliya inaan la wadaagaan rabaa tan aan ka jawaabo horta sideedaba haddii wada hadal culays uu ku yimaado dal iyo dad dhibaato ay ka taagan tahay ay tahay wada hadallada in dib loogu noqdo oo wax kale ma furo daahir maxamuud geel ahaan waxaan aaminsanahay arrinta Soomaaliya waa miisku dhamaato miiska mararka qaarkood way isku qaban weyn kartaa laakiin haddana miiska in lagu soo noqdaa lagu qasbaya qolal arkin ay soo tashato aragti soo aragto waxyaabada soo sameeyso haddana miiska lagu soo noqdaa lagu qasbaya aniga aragtaydu waa in marka la isoo laabto marsi kale la isoo laabto markii la kala kacaw la isku soo laabto taas waa mid waxaan rabaa dhacdo inaan la wadaago maanta waxay soo gaaray inay tahay arrintii ugu weyneed hay-adaha nabadgelyada gacan ku hayntooda xilliga kala guurka iyo dadkooda doorka ay yeelanayaan waqtigii dowladdii umawiyiinta oo nabiga sal lla slam khilaafadiisa ka bacdi dhalatay ayaa waxaa jiray nin cabdulmalik ibni marwaan la yidhahdo boqor noqda ninkaasi waxaa haysay kacdoon dhib badan oo habka shabaabka oo kale ah oo khawaarij la yidhaahdo ninka madaxda ka ahaaba wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan aya adiga wada hadalno oo aad dimashq ay ugu timaadis meesha caasimadda ay ku tiilay ninkii wuxuu yidhi hadda waa dirisannahay wuxuu niyo anaa ammaankaaga damaanad qaaday waad ii imaanaysaa waa wada hadlaynaa aan heshiin weyno meeshaadii adigoo nabad ah ayaad ku soo laabanaysaa waa uu yimid cabdulmalik ninkii waa loo keenay ninkii markii loo keeno qoortaa laga jiray ninkii qoortii waa laga jiray nin sheekha oo mufti ahoo meesha la joogay wuxuu yidhi ka warran ninkii dhibka badan ugu waday waa soo waa la ii keenay waa soo silsilay waa la ii keenay qoortaan ka jiray markaas wuxuu yidhi warniyahow go-aan way ahaa lahayd haddii adigu maanta nin nool oo sii jiray oo sii noolaaday aad tahay marka cabdulmalik inta yaabiyey wuxuu yidhi niyahow sheekhow ma waxaad ii aragtaa wax dhintay inaan ahay inaan dhintay markaasu wuxuu yidhi war niyahow boqorow nin boqora oon ballan lahayn oo qofka uu bixiyo aanu baxsanayn oo xariga uu xidho uusan xirnayn xayaatadiisa qiimahay leedahay ma ii sheegi kartaa yidhi nin baad ammaan gelisay nin baad wax u ballan qaaday nin baad tidhi nabadaad ku noqonaysaa nin baad wada hadal ugu yeertay waa dhagartay ma ii sheegi kartaa yidhi wax ay noqon karto cabdulmalik waa yaabiye wuxuu yidhi hadalkan haddii hadda kahor aan maqli lahaa woona anfici lahaa oo waxba u itar lahaa buu yidhi madaxweynaha hadda joogay oo xilkiisu dhammaaday guddoomiyihiisi baarlamaanka iskaleen ciidana ugu baqdo qaawiyey ra-iisul wasaarihiis bay isgaleen si aan sharci ahayn u maagay madaxweynayaasha ka horreeyay weerar ku qaaday guryo siyaasiyiin buu u dhacay marnaba kuma soo dhicin in asaga inta laga aamin baxo la leeyahay qofka aaminaysa ma laha marka cabdulmalik ibni marwaan khawaarijtii mar dambe isaga iyaga wada hadal iskuguma aanay imaanin marka madaxweynaha iyo nidaamka hadda jira waxaa hoostooda ka baxday baydhabo ku duul oo dad kusoo dil samareeb ku duul oo dad kusoo dil muqdisho ku duul oo dad kusoo dil madaxweynaha xilka ku wareejiyey weerar gudoomiyahaaga ciidan oo kor dhoob ra-iisul wasaarahaaga xabad kala daal markuu xilka ka degay dadkuna sidai ha ku aaminaano madaxtooyada ha kugu yimaadaano inaanay isqabanaynin marka waxaan leeyahay walaalkayo waqtiga lagu aamin lahaa waa uu kaa dhammaaday waqtiga qori lagu aamin lahaa waa uu kaa dhammaaday halka waddada kaliya ku furan waxa ay tahay in dadku aad u xaqiijisid in awoodda ciidan haynta iyo amar bixinta ay kaa wareegtay walaalow dadku way kaa gar leeyihiin waan kaa gar leenahay haddii aan kaa aamin baxno waayo ummad badanaa gacantaada ku maqan ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay hebel dil oo duugi oo hebel kale dil oo duugi oo hebel kale ku duuliyey idinka ha idin dhammaystire u imaada oo meeshiisa lagu shiray cid dhehaysa caqliguna keeni maayo nimanka marka arrinkaa kala hadlay aniga waa igula saxan yihiin maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo amni uu gacanta ku hayo layskuma aaminaan waayo magaciisa ogaado ciidanka lama diidano xoogga dalka lama diidano booliiska lama diidano niise lama diidano odaga way waayo intaas iyagoo jiraan ayaa doorashooyinka la qaba jiray waxa isbedelo waxaa waaye duqa amrayo oo qalluuciyo ah oo maqurxiyo ah oo maxamed ah